si xaraga leh ayaa looga soo baabuurkiisa markuu soo imaaday ayaa si xaraga leh inta jaranjarta loogu soo dayay gacanta loo gashtay jeebka farmaajo aad ay ku soo dhawow aan ku tuso micnaha filla Soomaaliyada aad joogi jirtay ka duwan filla Soomaali ya salaam waa muuqaal qurux badan oo muujinaya wax qabad farmaajo oo aysan ka muuqan daal walwal iyo waliba jirgo ayaa gacanta ka qabtay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna tusay filla Soomaaliya sida ay u egtahay waa cajiib filla Soomaaliya oo markii hore ahayd meel qayb ahaan dhismaheedu uu dhisan yahay laakiin inta badan dayac badan uu ka jiray meelaha qaar xitaa la arki jiray dhirtii oo nabaad guurtay ayuu madaxweynaha maanta farmaajan ka hadlayay tusay madaxweynaha cusub meel ka duwan filladii hore uu ka jiray Xasan Sheekh waxa insha loo saaray filla Soomaaliya oo ay ka dhaxbaxayaan dhir cagaaran qurux badan oo qofkii mar ishiisu ay ku dhacdo uusan mar kale ka jeesanayn jawi degan meel kasta oo biyo uu ka daadanayo dhismayaashii oo la casriyeeyay ayaa la tusay wax qabad weyn ayaa ka dhex jira filla Soomaaliya haddaan la dafirin farmaajo waxa uu dhisay guud ahaan foorumka fillada wuxuu bedelay qaabkii hore ay ahayd tusaale madaxweynaha waxyaabaha la tusay ee markii hore aan fillada ka jirin waxa kamid ah albaabka ugu horeeya ee laga gala filla Soomaaliya markii hore bir ayaa lagu qaadi jiray baabuur kasta oo soo galay hadda machine ayaa baabuurka hubinaya qof kasta kaar aqoonsi oo ku maro oo biometric ah ayuu haystaa oo aqoonsi qofka uu yahay xafiisku ku tirsan yahay macluumaadkiisa iyo marka uu galo qofkaas haddii xitaa dhib ay ka imaadaan waqtiga uu galay la heli karo halkii markii hore ay ka ahayd inaa mashiinka uun iska dhex martid adoo iska baaraya socotid waxaasoo dhan ayaa la tusay waxaan u jeednaa meeshan inay tahay cashir siyaasadeed oo weyn farmaajo oo laga badiyay doorashadii wuxuu uu sameeyay maalintaas iyo maanta waa taariikh waaweyn oo ay tahay in looga mahadceliyo maalintii laga adkaaday hadal cajiib ah uu sheegay waxa ugu horeeyay afkii soo baxay waxa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u weydiiyay Xasan Sheekh Maxamuud inuu xilkan ku asturo oo ku guuleysto duco qalbi ayay ahayd ama ha dhagra ama si kale ha ahaatee laakiin fagaaraha waxa uu ka sheegay sida uu ugu faraxsan yahay in ninkan walaalkiisa xilka uu ku wareego haddii uu ku wareegayna sidoo kale uu alla la garab galo xildhibaanadii doortay iyo kuwii isaga ka codeeyayna waxa uu ugu mahadceliyay dadaalkooda iyo in dalka ay u dooreen madaxweyne xaaladaha hadda taagan kasii samata bixin kara halkaas ayayna uga ekeed dabcan qof laga guuleystay farxad uma taal laakiin saas oo ay tahay wixii uu sameyn karay ay ugu weynaa ayuu sameeyay waxa laga filayayna way ahayd inuu xilkaas ka tago maanta filla Soomaaliya madaxweynaha ugu yeeray madaxweynaha xilka kala wareegi doona ee la dhaariyay Xasan Sheekh Maxamuud Xasan muuqaalka waxa laga dhex arki karaa sida uu tacajubay wuxuu u qaadan la yahay sida arki kartid haddaba oo uu u qaadan la yahay quruxda dhismaha filla Soomaaliya meel kasta geedaha hareeyay filla Soomaaliya markii hore ma lahayn xitaa meelaha qaar shaqaale biyaha ku shuba xaqiiqda marka laga hadla oo geedaha siiya biyaha way yaraayeen hadda si xaraga leh ayaa looga soo baabuurkiisa markuu soo imaaday ayaa si xaraga leh inta jaranjarta loogu soo dayay gacanta loo gashtay jeebka farmaajo aad ay ku soo dhawow aan ku tuso micnaha filla Soomaaliyada aad joogi jirtay ka duwan filla Soomaaliya ka qurux badan tii hore filla Soomaaliya cajiiba halkaas oo wacdara weyn ay maanta ka dhacay farmaajo waxa uu muujiyay farxadda sida farmaajo waxa uu muujiyay wax qabadkiisa filla Soomaaliya kuraasta Xasan Sheekh dhinacyadu fiirina Xasan Sheekh xitaa hal meel ma ku ekaanay intuu wuxuu la yaabay dhismaha foorumka ماشي إيش هذا دقة قلبي قايم دقة إيش في سات دقة في الصومالي